Soomaalidu tan iyo markii ay gacmahooda ku rideen dawladdii loo arkayay inay ku fadhido sadbursiyo ay heli lahaayeen saraakiil iyo ganacsato midba maalintiisa gadooday qabyaaladina aanay ka marnayn dibna looga qoomameeyay waxa ay dhex maquurteen colaado kala calaamada duwan oo mid waliba carcarteeda iyo caynad gaar lahayd muddadii 22 sano ahayd roobabku waxa ay da'ayeen iyadoo difaac la isugu jiro qorraxda Soomaaliya u dhalataana ma aanay dhici jirin iyadoo aanay dhicin wixii dhici lahaa oo ah dagaal la sokeeye mid siyaasadeed mid dhul dawladeed la isku hayso mid aana qabiil gaadiid la kala dhacayo mid isbaaro mid diimeed mid ganacsato mid dawlad lagu taageerayo iyo mid qaad ka bilowda maalin walbana waxa la soo ahaa ummad iswada dilaysa oo kala qaxaysa oo aan isku soo gelin mar walbana waxa loo sacabatumay fikrad kooxi keentay oo aan la isweydiin halka ay ku dhamaanayso aakhirkana waxa laga haraa oo mid kale looga diga rogtaa iyadoo kii hore laga dhaxlay oo qura dhimasho iyo dhaawac ma ahayn wixii la soo maray iyo dhawaqyadii la maqli jiray cayaar sharax ah ama welisoqo rag xoogani garaacayeen ee waxay ahaayeen rasaas iyo madaafiic lagu ridayay dad iyo daaro wixii markaa noolaa marka aad se u fiirsato si miyar qab ahna u eegto haddii aad ka soo samato baxday wixii si maalayacni ah rag isugu soo dileen ama ay u soo galaabteen kuwa aan waxba galabsan sow lama oran karo waxa ay Soomaalidu u ekeed umma taariikhda iyo mustaqbalku u yihiin qadar iyo nasiib iska yimaada oo haddana iska taga ee aanay ahayn natiijo ka dhalata waxa ay sameynayaan marnana aan xilligaasi isweydiinin su'aalo ay iminka hayaan jawaabahooda waxa ay u eg yihiin dad dunida u arka in lagu soo jajoobay oo ka firxanaya oo sida ugu dhaqsiyaha badan u dhimanaya waa dad rubuc qarni deegta ku sita AK47 oo ah darka wadku u soo maro xaqna uma laha inay noloshooda canaantaan maadaama iyagu doorteen sidoo kale waayadan dambe waxa Soomaaliya ku soo badatay qaraxyo ismiidaamin ah oo dad badan oo masaakiin u taxaabay aakhiro marka saad maqasho gaari qarxay oo qofkii watay keligii ku dhintay ama ruux meel cidla isku qarxiyo waa suurtagal inaad su'aalo badan isweydiiso sidoo kale marka aad maqasho dagaal socda oo salka ku haya muran isbaaro guri dawladeed oo la isku haysto ruux kun shilin loo dilay iyo waa ka shakiyay ama qaad la kala dhacayo oo sababa dhimashada in ka badan 20 ruux iyo dhaawaca sodomeeyo kale iyana waa suurtagal inaad isweydiiso oo ay maskaxdaada ku dagaalamaan su'aalo badan oo ka mid tahay waxa dhacay iyo waxa la isku haysto siday u kala fog yihiin aaway noloshii qiimaha lahayd maxaa dadka nabad inay dunida ugu noolaadaan u diiday bal u fiirso tahriibka badda waxa toddobaad walba soo yeeraya Soomaali badan baa badda ku dhimatay maalin walbana doomuhu waa sii raran yihiin oo waxa lagu sii daadinayaa biyaha weliba waa lagu kala tartamayaa geerida naxdinta leh dhanka kale haddii aad maqasho askari kala dilay ama nin ciidan ah oo qof rayida dilay oo maalmo dabadeed maxkamad la soo taagay ina heblaaye hebel dabadeedna lagu xukumay dil toogasho waxa aad isweydiinaysaa bal waxa uu ka faa'iiday falkiisii hore iyo inuu dilkani ka fiican yahay dilalkii hore ee aan la isku dabagali jirin markasta la isku soo xooriyo in kastoo geeridu xaq tahay dhimashadan Soomaaliya laga wada caashaqay mar qurana aan la isweydiinayn waxa lagu dhimanayo waxa ay yihiin welina qorigii hebel badan lagu dilay la sito la iskuna taagayo si ay dhimashadu u sii socoto iyadoo la og yahay ruuxii dhintaa inaanu dib ifka ugu soo laabanayn soo waxa loo wada degdegayo lama oran karo Soomaalida aboor baa casuumad u dhigay